galab wanaagsan ku soo dhawaada saaxiibayaal warka halkudhig news qodobada ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda Kenya oo ciidamadii ugu badnaa abid soo dhoortay xadka u dhaxeeya Mandheere iyo Balad Xaawo xilli ciidamada dawladdu ay sheegeen inay weerarayaan magaalada Nairobi taliyaha booliska Soomaaliya oo sheegay in amniga Muqdisho faraha ka baxay isagoo fashiliyay sir culus macallinkii xulka qaranka Soomaaliya oo sabab amni darteed dalka iskaga cararay dawladda Soomaaliya oo maanta ciidamo badan geysay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gede xilli xiisad dagaal ay magaaladaasi ka taagan tahay laba kamid ah raggii lagu helay kufsigii iyo dilkii Caashe Ilyas aadan oo toogtay iyo aabaha Caashe Ilyas dhalay oo ka hadlay sababta toogashada looga reebay mid kamid ah raggii loo xukumay kiiska Caasha haddii aad nagu cusub tahay ama aad nagu soo biirtay fadlan daawade subscribe channel-kan si aad u hesho wax kasta aan channel-kan soo gelino taariikhdu waxay tahay 11 bisha 2 Febraayo sanadka 2020 qodobadii aad maqasheen iyo kuwa kale oo ka dheeraada ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilowna markaan gobolka Gado dawladda Kenya ayaa lagu soo waramayaa in ciidamo dheeraad ah ay geysay magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkaasi ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa lagu arkay qaybo badan oo kamid ah gudaha magaaladaasi wararka ayaa sidoo kale sheegay in dhaqdhaqaaqyo cusub iyo howlgal ay ciidamadu ka bilaabeen halkaasi sidoo kale dadka deegaanka ayaa cabsi ka muujinaya xiisada ka taagan Mandheere iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka jira halkaasi arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoona shalay sanatarada xildhibaanada laga soo doorto Mandheere iyo maamulka degmadaasi ay dalbadeen inuu deegaanka iskaga baxa wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo baxsad ka ah dawladda Soomaaliya waxayna ku eedeeyeen in qalqal amni uu ka wado magaalada Mandheere xaaladda ayaa maanta aad u kacsan waxaana talaabadii qaaday Kenya ay sar u sii qaadaysaa xiisada ka taagan halkaasi sidoo kale ciidamadan ka tirsan militariga Kenya ee gaaray xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku soo aadaya xilli ay sheegeen saraakiisha hogaaminaysa ciidanka dawladda ee ku soo gobolka Gado ay sheegeen in ay weerar ku qaadi doonaan dhawaanahan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya markaana Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar ayaa sheegay in ammaanka dalka uu meel xun marayo isagoo xusay in dalka amnigiisa lagu soo duulay General Xijaar oo ka hadlayay kula looga hadlayay isku xirka howlaha hay'adaha socdaalka iyo jinsiyadda oo maanta ka furmay Muqdisho ayaa ugu baaqay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda inay kontaroosho dadka dalka soo galaya amniga dalka meel xun buu marayaa amnigu waa lagu soo duulay kaamirooyinkii lagu xiro wadooyinka in la qarxiyo ayaa la gaaray dalka horumarkiisa ayaa la diidan yahay injineerada wadooyinka dhisaya ayaa la qarxiyaa waxa la diidan yahay ummadan inay xasisho ayuu yiri General Xijaar oo ka hadlayay madashaasi sidoo kale taliyaha ayaa sheegay inay muhiim tahay wada shaqeynta hay'adda socdaalka iyo booliska isla markaana ka wada qayb qaataan ilaalinta amniga iyo kontaroolka dadka dalka soo galaya dalkeena amnigiis waxaad u malaysaa in lagu soo duulay ama xuduudda laga soo galo dawladda lagu yimaado dalkeena amnigiis waa lagu soo duulay amnigiis dalkeena meel xun buu marayaa inaanu marka labada hay'adood wada shaqeeyaan muhiim waxa la diidan yahay oo hadda la diidan yahay dadka amnigiisa in la ilaaliyo muxuu ahaa kaamirooyinkii lagu xiray wadooyinka in la qarxiyaa la gaaro dalka hore markiisa la diidan yahay wada la dhisayaa oo hadda wadooyinka dhisanayna injineeradana keenay baa la qarxinayaa waxna loo dhigayaa iyagana la dilayaa waxa la diidan yahay ummadda tan Soomaaliyeed inay xasisho oo amni ku noolaataa la diidan yahay hadalka ka soo yeeray General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa ku soo aadaya xilli maalmo ka hor la qarxiyay kaamirooyin hay'adda nabad sugidda ay ku xirtay qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada hormarta madaxtooyada ee tagta ilaa lambar 4 kaamirooyinkan la qarxiyay ayaa waxa sheegtay Al-Shabaab waxaana xusid mudan in wadada xiriirisa madaxtooyada ilaa lambar 4 kaamirooyinka lagu xiray ay مسؤول looga dhigay ciidamada dhacda inkastoo wali aysan ka jawaabin hay'adaha amniga halkay ku magnaayeen ciidamada xilliga Al-Shabaab ay qarxinayeen kaamirooyinkan
dowladda Soomaaliya ayaa maanta ciidan geysay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gado gudoomiye ku-xigeenka Ceelwaaq ee gobolka Gado mudane Sahal Macalin Aadan ayaa sheegay in maanta ay sugayaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo saacadaha soo socda ku wajahan gudaha degmadaasi Sahal oo wareysi siiyay warbaahinta Muqdisho mid kamid ah ayaa sheegay in ciidamadaasi ay la wareegi doonaan amniga degmada Ceelwaaq sidoo kale waxa uu tilmaamay in iskugu jiraan ciidamadan saacadaha soo socda dowladda geynaysa Ceelwaaq military booliis iyo asluub sidoo hadalka u dhigay gudoomiye ku-xigeenka Ceelwaaq oo hadalkiisa sii wata ayaa ka dalbaday dowladda federaalka inaysan hilmaamin ciidamadii hore ugu howlgeliyay degmadaasi kuwaas oo ku tilmaamay inay ku soo shaqeeyeen duruufo adag tan iyo sanadkii 2009 dowladda federaalka ayaa muddooyinkii dambe ciidamo ku daabuleysay degmooyin ka tirsan gobolka Gado kuwaas oo la wareegay Doolow iyo Balad Xaawo dhaqdhaqaaqyadan ayaa sidoo kale sare u qaaday xiisadda u dhaxaysa dowladda iyo Jubbaland ee ka taagan gobolkaasi maalmihii u dambeeyay waxaa sare u kacay xiisadda u dhaxaysa Jubbaland iyo dowladda oo muddooyinkan khilaaf xun u dhaxeeyay macallinkii xulka qaranka Soomaaliya ayaa shaqada iskaga tagay sabab amni dartood macallinkii kooxda xulka qaranka Soomaaliya oo lagu magacaabo Janiyan Bashir Herford ayaa shaqada iskaga tagay 11 bilood kadib ninkan oo u dhashay dalka Ghana ayaa sababta ku sheegay arrimo la xiriira amniga Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho oo muddadaasi ka howlgelayay macallinka oo la hadlay shabakada wararka Bilsi.com isagoo ku sugan dalkiisa ayaa wacad ku maray inuu dib ugu laaban doonin gudaha Soomaaliya isla markaana uu shaqadiisii uga tagay amni darro awgeed sidoo hadalka u dhigay macallinkan sidoo kale ayaa muddadii uu gacanta ku hayay xulka qaranka Soomaaliya ka shaqeeyay dib u hagaajinta ciyaartooyda wuxuuna markii uu qabtay kooxda sanadkii hore 2019 uu gaarsiiyay heer wanaagsan sidoo kale macallinkan guulaha muhiimka ah uu la gaaray xidigaha badweynta Ocean Stars waxa kamid ahaa kadib markii ay garaaceen xulka qaranka Zimbabwe lugtii hore ee reebka koobka adduunka ee 2022 lagu qabanayo dalka Qatar hogaanka xulka qaranka Soomaaliya ayaa haatan ka baaraandegaya macallinka bedelaya booska uu baneeyay macallinkii u dhashay dalka Ghana ee 11 bilood hogaaminayay xulka qaranka Soomaaliya markaana Puntland laba kamid ah raggii lagu helay kufsigii iyo dilkii Caashe Elias ayaa la toogtay ciidamada Puntland ayaa maanta toogasho ku fuliyay laba kamid ah saddexdii nin ee lagu helay kufsigii iyo dilkii loo geystay Caashe Elias Aadan oo 12 jir ahayd dhacdadaasi oo si weyn u taabatay dadka Soomaaliyeed raggan ayaa lagu toogtay fagaara ku yaala magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland ahna caasimadda gobolka Bari labada nin ee la toogtay ayaa kala ahaa Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige halka muddo 11 cisho dib loo dhigay toogashadiisa Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame oo walaalkiis maanta la toogtay wararka ayaa sheegay in sababta xukunsanaha toogashada looga reebay tahay inuu dalbaday aabaha dhalay Caashe Elias Aadan toogashada lagu fuliyay raggan ayaa hore loo sii ogaa waxaana 12kii bishii hore shaaciyay xeeraryaha guud ee Puntland dad badan ayaa si aad u soo dhaweeyay in cadaalad ay hesho Caashe yar oo bishii Febraayo ee sanadkii la soo dhaafay 2019 la iskugu daray kufsi iyo dil falkan oo ka dhacay gaalkacyo dhankeeda waqooyi oo ay ka arrimiso maamulka Puntland danka kale aabaha dhalay Caashe Elias Aadan ayaa ka hadlay sababta toogashada looga reebay mid kamid ah raggii loo xukumay kiiska Caasha aaba Elias Aadan oo dhalay marxuumad Caasha ayaa ka hadlay xukunkii dilka toogashada ahaa ee lagu fuliyay laba kamid ah raggii lagu xukumay kiiskaasi kuwaas oo maanta lagu dilay fagaara ku yaala Boosaaso aaba Elias ayaa soo dhaweeyay toogashada lagu fuliyay Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay sidoo kale wuxuu intaa ku daray in xukunka la fuliyay uu daawo u noqon doono gabar kasta oo Soomaaliyeed gaar ahaan inaan dumarka lagu la kicin kufsi iyo dil maanta waxaan qisaasanay ninkii dilka iyo kufsi u geystay gabadheedii Caasho waan dul tagay meedkooda oo waan hubiyay inay dhinteen labada ruux ee la toogtay waan ku faraxsanahay xukunka la fuliyay ayuu yiri aaba Elias Aadan dhinaca kale wuxuu soo hadal qaaday sababta Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame oo ah xukunsanaha saddexaad looga reebay toogashada Elias Aadan ayaa carabka ku dhuftay inay isku afgarteen isaga iyo qoyskiisa in dib loo dhigo muddo 11 cisho ah si baaritaan dheeraad ah lagu sameeyo wararka qaar ayaa sheegaya in aanan wali Cabdisalaan lagu helin cadeymo rasmi
rasmi ah oo muujinaya inuu qayb ka ahaa falkaasi inkastoo lagu xukumay dil toogasho. Kiiska Caasho Yar ayaa muddo dheer soo jiitamaya wuxuuna soo maray marxalado kala duwan iyo maxkamado dhowr ah oo ku yaala deegaanada Puntland. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Halkudhig News. haddii aad nagu cusubtaa ama aad nagu soo biirtay fadlan daawada subscribe channelkan.